ممكن تحف عن كاليته أي كاثر مريكا هرشي كاسوا personal brand واحد رسؤال قفل بيسويدين لكن تتكبد نيسن كجوابي هم هاي سببتهم قف كاس أوسو حسوسنا مرة بدن dadka caanka ah iyo kuwa ganacsiyada guuleystay xitaa kuwa hela fursado shaqooyin heer sare ah ay dhammaantood dhisaan hal shay kaasoo ah personal branding. maanta waxaan rabaa inaan ka jahil saaro halka shay oo ah fikirka qaldanna ah in personal branding kaliya u gaar yahay dadka caanka ah, dadka ganacsiyada guuleystay iyo wixii la mid ah. adiguna ma dhisan kartaa mid adiga kuu gaar ah xitaa haddaad isku aragto inaad tahay qof caadi ah وهذه قف عنا قف قناعس يقول السلام عليكم كتامي كوجرا حتى هذا الكلام نقطة قف لا منه لحسسته في ديجان وفي ديجا ما أنت وحياة بدنا يعني سلوغان دونا مركور هذا السلوغ جام نقطة وام حي personal branding هو وسيدة كلا كوار كان هو حسستان كنا أقون سدان كلية ما هينا سوشيال ميديا بروفيلز أسمستو المقالة صوريكتو لكن وفرين هذا qaabkaada iyo qiimaha bulshada dhexdeeda ku leedahay. personal branding waa isku darka aqoontaada, qiimahaada, dabeecadaada iyo fariinta aad rabto in dadka kale ay fahmaan. sidoo kale personal branding waa summadda adiga ku gaar ah. tusaale maanta haddii aad maqasho magaca Elon Musk waxaa kuu soo dhacaya inuu yahay nin innovative ah oo uu yahay mid founder u yahay oo uu abuuray shirkadooyin badan uu yahay uu ka mid yahay one of the richest people in the world. haddii uu kuu soo dhaco mise aad maqasho magaca Mo Farah waxaa kuu soo dhaca inuu yahay mid orodyahan ah, uu yahay mid adkaysi badan, uu yahay nin Soomaali ah sax. laakiin adigu weli halkee taagan tahay oo waxay dadku u xasuustaan malihid personal branding dadku u xasuustaan malihid. marka sababtu aad u baahan tahay in personal branding aad dhisato waa maxay? sanadahan waxaa kordhay tartanka internetka dhexdiisa ka socda. dadku waxay ka raadinayaan online-ka inta aysan ku imaanin ka hor. ganacsatada, xirfadlayaasha, ardayda dhammaantood waxay u baahan yihiin in si gaar ah loo yaqaano. haddii aad shaqo raadinayso mise ganacsi bilaabayso mise aad rabto inaad noqoto qof influencer mise caan ah, dhammaantood waxay u baahan yihiin trust, aaminaadaasina waxaa keena personal branding-kaaga. marka sida loo dhisaa personal branding-ka? kow, ogow qofka aad tahay. maxaad jeceshahay? maxaad ku fiican tahay? isweydii maxaa igu gaar ah aniga? maxaan dad kale ugu duwanahay? maxay dadku ii baran karaan? aad ka jawaabto jawaabana aad hesho, markaas waxaad ogaatay qofka aad tahay. inta labaad, samee fariin cad. dadku waa inay fahmaan maxaad matalaysaa. sidoo kale waa inaad samaystaa hal fariin mise hal kelmad ay dadku marka ay maqlaan isla markii maskaxda kusoo dhacdo ay dhahaan oo waa hebel. midda saddexaad, dhis muuqaal isku xiran. waa inaad dhammaan social media profiles-kaaga aad saartaa hal image. sidoo kale waa inaad u wada samaysaa hal username. sidoo kale waa inaad doorataa hal kala oo brandkaagu u gooni ah. midda afaraad, la wadaag aqoontaada dadka. maanta oo record garee videos ama podcast sheeg waxaad ka baratay intaad ku jirtay fieldigan. waa inaad tusaalooyin ka bixisaa noloshaada, ha noqon perfect ee noqo daacad. midda shanaad, waa inaad dhistaa community ama bulsho. la sheekayso, la shaqee. markaad dadka la xiriirayso sumcadaada kor bay u kacaysaa oo ay kordhisaa sumcadaada. midda lixaad ugu dambeysa sida loo dhiso personal branding waana midda ugu muhiimsan muuqaalkeena maanta. waa inaad samaysaa consistency. personal branding maaha wax hal mar aad dhisayso ee waa safar dheer. la jaanqaad isbedelka dunida ka socda, waxna baro. waxbarashadu ma dhammaatay ay dadku dhahaan saynisaanada. ku mashquulin perfection ee ku mashquul consistency. wax kasta ma ogid, baro, la wadaag dadka kale. u muuji nafsadaada si joogto ah. la samee xiriiro dadka xiiseynaya. waxaa laga yaabaa in aadan weli arkin muhiimadda uu leeyahay personal branding, laakiin hal su'aal ayaan ku weydiinaya. 5 sano hadda kadib haddii uu qof magacaaga maqlo maxaa rabtaa in maskaxdiisa ku soo dhacan? haddaba waqti aad dhisan lahayd brand adiga kuu gaar ah. isbedelka kama bilowdo berito ee wuxuu ka bilowdaa go'aankii aad maanta qaadato.